inagu markaynu iminka galbeedka joogno aqligeena jooga wali wadankii qolofteenuna waxay joogtaa maxay halkan maxaan uga dan leeyahay keena dadaala wuxuu oranayaa ilmihii madrasada ku soo daray sabti kasta iyo axad kasta waan ka xeeyayo masaajidka geeya gartay masaajidka maxaa lagu qabtaa quraanka loo dhigaa okay ilmuhu hadii faataxada iyo rabbinaas iyo ayad kursiga iyo jisc amal la qaybsiyo miyuu wanaagsananaya waxaanu garanayn haduu qaybo waa culays sunnad saartay ilaa wax kale looma sheegin waxa laga yaabaa madrasadeenu inay tahay adna waxaad ku dadaalaysaa ilmuhu halku jisku maraya waa ilmaha quraanka uu dareeriya tabaarak buu dhaafay halka buu dhaafay hadii kalena waqolada amma ku noqnoqotay aan dhaafin soo duuduba ama amaha ku barto ama ku soo qaybay bulshadan intay ka taraysa marka quraan la qaybaa wadankeena markaynu joognay dadul muslimiin joognay quraanka in la qaybaa tacliintay furi jirtay wax barashada ay bari jirtay qoraalku ku baran jiray fartu ku baran jiray kabu ku baran jiray laakiin quraanku qaybaya gaala kale ma hortagaynin waxa leeyahay mas'uuliyada caruurta inaga saaranay ma haynayno quraan xafadsiino quraanka xifdigiisu waajib maaha waxa waajiba inta lagu tukado inta kale waa sunna wa min as-sunnah way fiican tahay inaad ilaahay kitaabkiisa wax badan ka garanayso waa wax Soomaalida lagu amaano inay yihiin dad quraanka xifdisan laakiin asalkii ma haynu soconay asalka inuu soconnaa waa maxay waa asal awal iskuulka iyo suuqa iyo madaaristeena iyo dadka iyo waxaas ay dhigi jireen adnaanad ogeyn waa asal qofka sidee muslim looga dhigaya qofkan inuu quraan xifdiyo ma kula taybu ku islaamnimadiisu ku joogaysaa quraanka ma garanayo wax ku qoran ma fahmayo xifdigu soo xifdiyena kuma joogayo sida awgeed mas'uuliyada waalidka saarana ugu horeysa waa maxay ilmahan inuu rabbigii baro ilaahay jeclaysiiyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam jeclaysiiyo